xaflad si heer sare loo soo agaasimeen maamulka dugsiga Bariga Afrika ayaa ka dhacday xarunta dugsiga oo ku taala xaafadda October ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay oqaal culimaawidiin abwaano qurbajoog aqoonyahan xubno ka tirsan ururka Sahal iyo mas'uuliyiinta hay'adda Masna oo hay'adii maalgelisay dhisitaanka dugsiga waxaana furay xafladda furitaanka dugsiga abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxaanu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhisitaanka dugsiga waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqay gabadhii bixisay dhulka laga dhisay iyo hay'adda Masna oo hay'adda uu hoostagayo dugsigu waxaanu ku dheeraaday abwaanku qiimaha ay leedahay waxbarashadu isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri insha Allah waqtiga soo socda gabadhii doona munaasabadan maanta haddii ay cid waliba la timaado yuhuuddaas iyo dayaadka waxay naga xumaan lahaa ma jirto ayba hawliheeda iyo danaheeda inagu aynu qabsanno dee karaamo iyo sharaf iyo raganimo ayuuba inoogu kordhaya sidoo kale waxaa ka hadlay madaxa waxbarashada ee hay'adda Masna Cabdiraxmaan Khayre waxaanu tibaaxay inay hirgashay ay ku faraxsan yihiin himiladii ay badan higsanayeen ee ahayd ka soo qaybgalka xafladda wanqalka furitaanka dugsiga waxaanu ka dhawaajiyay habka iyo hanaanka uu doonayo inuu ku shaqeeyo dugsigu waxaanu yiri isagoo arrimahaasi ka hadlay hay'adaha ugu diibsanay qabto waxa kamid ah tacliinta oo ka shaqeyso oo alxamdulillah marka waxa ay maanta Soomaaliland ay aad u muuqato waxaad la socotiin iskuulka dugsiga sare ilays halka uu kaga jiro Soomaaliland maanta dhowr goorna markaa national examination ama imtixaanka qaranka uu kaalinta koowaad galay oo ka hor u dhameeyay iskuuladaasi iskuulka sare ilays iyo shan iskuul oo saddex oo geeska ku yaala iyo iskuulka geeska Afrika ee Burco ku yaala intaaba lixda iskuul bay ayaa leh oo markaa waxa weeyaan hoos yimaadaan nasiiboonaga markaa dadkii khayrka bixiyay markii markaa odayaasha iyo aqoonyahanka dadkii isku tageen in hay'adan lagu wadeejiyay inay socodsiiso waxa weeyaan barnaamijka tacliimiga ah inaanu socodsiino waxa la wixii aan ka qaban karno ka qabano oo macallimiinta loo doorano oo maamul wanaagsan ku sameeyno oo markaa waxa sida loo bixiyay khayrka loo bixiyay waqtiga dadkii la baxay u bixiyay inaanu ka horumarkiisa ka shaqeyno waxa isla madasha ka hadlay maamulaha dugsiga Abubakar Carabileeye waxaanu maamuluhu u mahad celiyay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ka qayb qaatay hirgelitaanka iyo dhismaha dugsiga iyadoo uu carabaabay maamuluhu inay albaabada u furayaan dugsiga Sabtida inagu soo fool leeyahay taariikhdu tahay 10 bisha 9 ee sanada 2011 waxayna munaasabada ka hadlay gudiga iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda October sheegayna inay soo dhaweynayaan isla markaana ay la shaqeynayaan dugsiga Bariga Afrika